السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصرين باو within channel walaalaha ku xiran waxaa idin leeyahay soo dhawaada meel kastoo aad joogtaan. waa walaashin Safiya Faarax Bande. waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada channelkan anigoo aan jeclahay insha Allah waqtigeyga marka aan helo oo aan ii suurtoodo oo waqtiga uu firaaqo ii soo baxo inaan idin soo galo. haddaba maanta maxaan ka hadli doonaa topicgeyga number 1 waan ogahay inaad ka fikiraysid Safiyo topic ay soo wado waa maxay. topic aan ku soo wado waa fikradaha qaldan oo qofka ibn aadanka soo gala oo loo yaqaano English ahaan negative thoughts. negative thoughts ka xagee buu naga soo abaara xagee nooga yimaada sidees uu noo soo galaa. haddaba waxaan ka dhigaynaa story ahaan inuu qof ku yimaado adigoo maqsinkaaga jooga, adigoo shaqada jooga, adigoo meel leer ku qaadanaya. qofkan uu ku soo ag fariistay wuxuu noqon karaa nin, wuxuu noqon karaa qof dumar, qof rag ayuu noqon karaa. markuu ku soo ag fariistay qofkaas waa qof soo bartay qofka aad tahay oo yaqaana everything inside out, everything aad samayso ayuu ogyahay. haddaba qofka waxaa dhacaysa inuu markuu ku soo ag fariisto everything aad ka baqi jirtay oo ama aad soo dhaaftay noloshaadii hore, sababta waa muraayadaadii. qofka waa qofku garanaya, waa qof deep down adiga ku ah. actually ma ahan qof adiga kaliya banaanka kaa soo bartay, waa qof adiga ku ah oo laakiin banaankaaga baxsan. markasta wuxuu kugu hayaa ereyada waxaa ka mid ah inuu ku yiraahdo, inuu kugu soo celiyo waxyaalo hore dhacay, eedo, abti, adeer, everything, hooyo, walaal, everyone, daris, asxaab, maaragtay ex, qofka hore a kala tagteen, anyone oo hadalladiisi uu ku dhihi jiray. waayo waxaan nahay dad noolo la nool oo dad ibni aadan. hadalladii uu ku dhihi jireen, hadalladii uu kugu soo celcelina wuxuu ku leeyahay taariikhda maalinka ay maalinka ma xasuustaa. hadalka uu qofka kugu dhahay adigu ma hadlaysid, waad aamusan tahay, waxaad doonaysaa inaad meesha ku qaadatid deganaasho. laakiin qofka garabkaaga fadhiya oo kula fadhiya ma aamusna, waa qof aan maanta dhan hadlay, codkiisa dhiibanayo, codkiisana adigu kugu furayo, qof kalena ma maqlayo. ilaa ma qof kale meesha uu ag marayo ma dhageysanayo mana maqlayo, laakiin adiga maqasha. wuxuu kugu soo celiyay wixii hore oo dhan. dan wuxuu kugu bilaabay inuu ku yiraahdo maalinkaas saa isaa qofka ku dhahay maxaad ugu jawaabi weyday, maalinka qofkaas uu kula hadlayay maxaad u jareynaysay, maalinka qofku hadalka caayda uu ku yiri maxaad hadalka saa ugu jawaabi weysay, maxaad u aamustay. miyaadan ahayn qof arag kartidii caqliga aad leedahay inaad hadashay ahayd. kadib meeshii waad ku daashay, gurigaad aaday, qofkan wuu ku daba socdaa kaamuusa harin. laamigaad goysa wuu kula gooyay, gurigaad tagtay wuu kula tegay. guriga markaas saa u tagtay haddana wuxuu kugu furaya cabsi oo ah inuu ku yiraahdo waay adigu miyaadan ahayn qof caqli leh, waay aad maskaxdaadii ugu soo noqonaysaa wixii hore lasoo dhaafay. miyaadan ahayn qofkan labiska qurxoon oo yacni korka ka qurxoon, banaanka markuu marayo akhlaaqi everything ile dadkoo dhan ay ogyihiin. waayo ay kugu soo noqnoqonayaan oo akhlaaqdaadii u bedelanta oo gudaha aad maanta dhan waxaan hore ee maskaxdaada usoo gelayaan. haddana codkii ayaa qofka kale isbedelaya, wuxuu isu bedelaya in uu canaanoo kale u bedelo, uu ku dhaho waayaad ugu xasuusanaysaa waxaasoo dhan. sidee ku dhici kartaa inaad xasuusatid wax yaraantii oo haddana aad wax aadan bedeli karin oo maskaxdaada ay intaasoo waqti ay kaa qaadata, saacad, 2 saac, 3 saac oo maskaxdaada ay ku jirtay. sidee ku dhici kartaa? kadib wuxuu kugu bilaabayaa inuu haddana ku hor ordo, fiijirka kusoo hordhigo, uu cabsi kaaga abuuro, uu ku yiraahdo haddaa intaa kusii socotid sidaan oo aad hurda la-aan habeenkii maskaxdaada inta kugu soo noqoto oo hurdadaadii kaa lunto because of ereygan kugu soo noqnoqonayo oo wixii hore ah. ka waran haddii uu wixii xadka soo dhaafo oo aad ku waalatid, hurdadii kaa tagto, dadkii ay ku fahmaan, maxaad samayn doontaa? yacni cabsi markii dambe waxaad bilaabaysa inaad guriga isku xirtid. haddaba waxaan kuu sheegaa dad badan ayaa dhibaatadan mara. dad waxaa jira maasha Allah ayagoo shaqaysanayay oo aad dadkii maaragtay ka ahaa wax badan qabsanayay oo noloshooda naftooda u ficnaa bay'ada ku nool ayaa subxaanallah one day negative thoughtskaas ku bilaabanayo. qofkii wuxuu bilaabaa inuu dabeecadiisii bedelmo, behaviorkiisii bedelmo, akhlaaqdiisii bedelanto, qofkii qof wanaagsan ah. kadib uu noqdo irritated, qof xanaaqiisu u badan yahay, qof frustrationkiisa easy ay tahay. waxaas oo dhan xaggu ka yimaaday because canaanta gudaha. haddaba su-aal ayaan ku weydiinayaa, qofkaa ku daba socda hadduu real life qof ahaan lahaa maxaad samayn lahayd? jawaabtu waan ogahay inaa ogta, waad dhihi lahayd waan iska celin lahaa. hadduu hadalka iga hor leexo iga diidi waay, booliiskan u yeeri lahaa. sax, iga hor leexo ore iga agtag. laakiin haddaba waxaan kuu sheegayaa naftaadii ma ceerin karti oo ma dhihi karti orod iga hortag, waa adigii meelaad isu saarta male. laakiin one thing ayaad samayn kartaa, adigoo identify ku sameeya waxaa meesha ka yimaadeen oo ku qanca waxaas in ay yihiin wax hore kugu soo noqday oo aadan ka cararin. kama carari kartid adiga naftaada, kama carari kartid. laakiin the best waxaa ah ku noolashaha living consciously inaa mar walba ku noolaatid. insha Allah iqaabka looga bixi doono waan ka hadli doonaa in badan, waana soo gelin doonaa hadduu ilaahay idmo. la soco channelka
wayna jiraan casharo badan oo aan online ku bixiyo waad kaga faa'iidi kartaa linkigana waxaan ku reebi doonaa youtube-ka commentiga dhankiisa waxaa idin leeyahay in meantime assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu